تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا وايد سلامي دمانتينا وحارجين يا إنا عافمات قبطان نبض قبطان الحمد لله أنا وافي عنهي. أصحابي عاوحا إذين وذا قصة آد إيغا يابسي. قصدان ayaa waxay ku dhacday gabadha afar 12 sano guri ku xirnayd walaalkeed ayaa soo gudbinaya. qisadana waxa hadda laga wareysanayaa oo maaragtaa arintaas muxuu ahaa la weydiinayaa ninkeeda 20 sano aduu meelahaas uu leeyahay wuxuu leeyahay ii sheeg muxuu ahaa wariyaha wuxuu weydiinayaa waase ayaa la leeyahay xaaladda xaaskaaga wuxuu leeyahay waa caadi gurigeeda ayay dhaqanaysaa ninkeeda ayay maaragtaa ilmaheeda ayay haysataa sida qof caadi ah oo maaragtaa u noolyahay ay u nooshahay adugu waa lagu celinayaa su'aasha waxa la leeyahay xaaskaagu meeqa sano ayay ku jirtaa guriga wuxuu leeyahay 12 sano waxa la leeyahay maxaa sababay wuxuu leeyahay mashaakil family ah iyo problem family darteed ay intaas sano guriga ugu jirtaa waxa la weydiinayaa ma la hadashaa oo may hadashaa may ayuu leeyahay 5 saniin yani 5 sano lama hadlin aniga iyada gurigeedii ku jirtaa qolkeeda kama soo baxdo wuxuu leeyahay wariyaha ma 5 sano oo guriga la joogtaa micnihii sheekada family problemka iyo dhibta weyn ee jirta ayaa waxay sababaysa ayuu leeyahay wariyuhu wuxuu weydiinayaa waa sidee buu leeyahay xaaladda Aamina gabadha waxa la yiraahdaa Aamina xaaladeedu waa sidee ayuu leeyahay wuxuu leeyahay way fiican tahay gurigeedina ku jirtaa mana soo baxdo muxuu ahaa ahsan xaal yani xaaladii uu fiicneed ayay ku jirtaa waxa la weydiinayaa wuxuu leeyahay ma u gali karaa oo ma arki karaa may ayuu leeyahay nin aad u adag waaye wuxuu leeyahay maya wuxuu leeyahay maxaa dhacay may u maleymaya buu leeyahay inay ku qaabilayso because intaas oo sano dad may arag qolkeeda kama soo baxdo gabadhaas waxa ku kalifaya inay maaragtaa arintaas ay xaaladaas gasho kollayde adiga daawada maxay kula tahay inay gabadhaas maxbuus u ahayd wareerka gabadhan ninka aragteen walaalka intaas la eg hooyadeed waxay gabadheedu u soo badbaadsan waayeen maxay kula tahay daawada adiga ra'yigaagu waa muhiim kollay qisadana kollay reerkaas lagu heshiisiyay saasay reerkaas ma aragtaa gabadhaas banaanka qoraxda loo tusay alxamdulillah dib weyn kadib alxamdulillah familkeeda ayay la midowday hooyada maamada gabadha dhashay aad ay iskaga ilmeynaysaa marka qisadan aad baan u yaabay markaan arkay kollay wax isma dhahaysid waqtiyadan waxaas way dhacaan waxaan is iri asxaabtaada la wadaag asxaabay intaan qisadan qisa lamida ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh